بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، القسم الأول في الطاعات. kitaabku wuxuu sheekhu u qaybiyey laba qaybood iyo qayb uu ka dabageeyey. qaybta koowaad wuxuu yidhi fi daacaadkii buu ka hadlayaa camalkaaga, camalul yowmi walleyla, camalkii aad maalinkii 24 saac aad qaban lahayd. qaybta kale wuxuu ku magacaabay daacaadka iyo macaasida qalbiga ka dhacaysa. qaybta u dambaysana wuxuu ka dhigay macaasida iyo xubnaha ka dhacaysa, macaasida xubnaha ka dhacaysa ayuu ka hadlayaa. marka qaybta koowaad wuxuu yidhi fi daacaad, waa daacaadkii, waxyaabaha lagaa doonayo waagu markuu beryo ilaa aad ka seexanayso inaad samayso, oo ay dee faraa'idii iyo sunankii ah. wuxuu yidhi alqismu alawal fi daacaad. iclam, waxaad ogaataa buu idhi ruuxa muslimka ee mukallafka ahow, ana awaamirallahi, ilaahay wuxuu ina faro tacaala kulhaye faraa'idu wa sunan weeye. faraa'idu wa nawaafil, yacni wax walba oo ilaahay ina fari subxaanahu wa tacaala, imaa inuu waxan wax farad ah oo laabudda inaad la timaado ay tahay, iyo inay tahay wax sunno ah oo daraja ku heli. ilam ana awaamir allahi, ilaahay awaamirtiisa waxaad ogaataa inay tahay faraa'idu faraa'id iyo wa nawaafilu sunan. falfardu, faradka ayaa ra'sulmaali ah. waxa faradkii ra'sumaalkii weeye. ra'sumaal waxaa la yidhaha markaad tijaaro samaynayso, xoolo aad haysood ka bilaabi baa jirta. marka xoolahaas waa ra'sumaalkii. haddii aad ribix dheeraada hesho waad liibaantay kolba intaad heshayba. haddii aad ra'sumaalkaagii weydana dee khasaarad u dumaysaad ku dhacday. marka ra'sumaalka islaamku waa faraa'id, waa wax lagugu farad yeelay, waa wax lagugu waajibiyey. taas ayaa ra'sumaalkii ah. marka wuxuu yidhi falfardu, faradku ra'sulmaali, waa ra'sumaalkii. wa bihi, faradkaas iyo ra'sumaalka bay aslu tijaara, tijaarada asalkeedu ka bilaabmaysa. tijaarada asalkeedu maxay ka bilaabmaysaa? faradkii inaad gudato, faradkii inaad la timaado, waa tijaarati diniya, taasay ka bilaabmaysaa. ra'sumaalkuna wuxuu ka bilaabmi waxa aad hayso ayuu ka bilaabmahaya. marka waa bihii, iyadaasay ka bilaabmaysaa buu idhi aslu tijaara. wannaflu, midda labaadna waa nafli, waa sunne. wannaflu huwa alribxu, naflin waxaa noqon markaa ribaxa. marka wuxuu yidhi lacag baad haysataa oo doonaysa inaad ku tijaaraysato. lacagta aad ku tijaaraysanayso waxa weeyahan eed hayso hadda eed tijaaro ku bilaabayso waa ra'sumaalkii. wixii dheeraad ah ee ku soo gala ee lacagtaa ka dhashana waa nafligii oo waa ribixii weeye. marka wannaflu, sunnada oo la timaadana huwa alribxu, ribx weeye buuri. wa bihi, sunnada oo lala yimaado dee alfawzu, liibaan ku sugan tahay bidarajaati, darajooyinka sare la gaadho. oo maxaa daliil u ah? qaala rasuulullahi, rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu alay wasalam, qaala lahu tacaala, waa xadiisu qudsi. marka xadiisu qudsi wuxuu yidhi, ilaahay wuxuu yidhi maa taqaraba almutaqaribuuna, iguma soo dhowaadaan kuwa ii soo dhowaanhaya ilaya aniga, bimithli aadaa'i maftaradtu, waxaan ku farad yeelay wax lamid ah. maftaradtu calay, waxaan ku farad wax lamid ah iguma soo dhowaanayaan. yacni waxaan kugu farad yeelay baad igu soo dhowaan kartaa, ee wax lamid ah oo farad lamid aho idina igu soo dhowaan karta sidaasoo kale ma jiro.
ما تقرب مسو دواد ما تقرب مسو دوادو المتقربون كوا سو دوان هيا إلي أنا بمثل أداء ما افترضت وحن كفر ديالي عليهم إيجا وحلا مدا ولا يزال كما الزوليو العبد أدونكو يتقرب إلي إنه يوصل وانهيو بالنوافل السنة دي حتى أحب إلا أن كجعله أدونك إلهي يوصل وانهيا سنك يوصل وانهيا يعني أدونك إلهي فرض بيوصل وانهيا ده تنوح يا والسنن والله إيمان هيو إلى أن كجعله فإذا أحببت أدان جعله كنت وحانها يسمع مقل كيسي الذي مقل كاسو يسمع به وحكو مقل هيو وبصروا أرقيسي بان نقريان الذي أرقاسو يبصر به وحكو أركو ولسانه عرب كيسي بان نقريان الذي كاسو يندق به وكهمو ويدو قعنتي سان نقريان التي تاسو يبدشو بها وحكو قبصدو ورجل اللقتي سان نقريان التي تاسو يمشي بها وكسعنيو ولن تصل مركا وحيري ان روحا مسلمكي وحو إلهي ugu dhawaan hayo oo Rabbi subhanahu wa ta'ala ku raali gelinaya marka hore inuu faraa'ish guto soonka lagu leeyahay zakada xajka salaada inuu guto laakiin isma dhigan hayo oo intuu waajibka iska tuuro ma fadhihayo wuxuu doonayaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala u sii dhawaado marka ka zuuli mahayo inuu la iman hayo sunan ilaa uu marka daro noqo ruux ilaahay jecel yahay subhanahu wa ta'ala oo xubnaha dambaabo oo dhan baray rabbi ilaalin hayo ka zuulismahayo wuxuu walan tasila gaari maysi ayuha طالب ruuxan doonaya ila alqiyaami istaag bi awaamirta ilaahay inuu istaaga ta'ala korahayeen illa bi muraqabati qalbigaaga inaad ilaaliso iyo wajawarihaka xubnahaaga marka qalbiga iyo jawaarixda labadaasay wanaaga iyo xumaantuba ka dhacaan jawaarixdu marka waa labada gacmood iyo labada lugood iyo labada indhood iyo labada dhagood farjiga iyo caloosha afki marka caloosha iyo u simaraysa carabkan waa gaar sawna carabkan waa gaar weey todobada xubnood ba ama khayr sameyn ama xumaan sameyn qalbiguna ama khayr buu qaban ama xumaan buu qaban marka saawgeed wuxuu yiri walan tasila ayuha daalib ma gaaraysid waxaan doonaya ila alqiyaam inaad u istaagto bi awaamirillahi awaamirta ilaahi ta'ala kor ahaye ma gaaraysi daacadii aad doonaysay iyo wanaagii ma gaaraysi illa bi muraqabati qalbigaaga inaad ilaaliso mooyeen wajawarihaka xubnahaaga inaad ilaaliso mooyeen fi lahadatika waxyaabaha muraaxadaynayso waxaad arkayso waxaad isha ku dhufanayso wa anfasika iyo waxa iyo neeftaada adu anfas wax weyn dawaan neeftan yaa la yiraahdaa laakiin wuxuu la jeedaa dhaqaaqaaga iyo fadhigaaga min xiin tusbixu makaad waa bariisato ilaa antum ilaa xiin tumsi marka ilaa galabta ka gaarayso yani waagu markuu bariyo ilaa ay qoraxdu ilaa qorax dhacme ah aad ka seexanayso inta u dhaxaysa xubnahaagaas way shaqaynayaan qalbigaaguna uu shaqaynayaa laba mid buu ku dhex jiraano wax ilaahay subhanahu wa ta'ala jecel yahay iyo wax ilaahay neceb yahay labada mid bay ku dhex jiraan marka sheekhu wuxuu ku leeyahay hadaad qalbigaaga iyo jawaarixdaada ilaalinin waxaad ku dhacaysaa xumaan baad ku dhacaysaa wa'lam ogow anna allaha ilaahay muطلع inuu ku og yahay ala dhamirka waxa qalbigaaga ku jira iyo calooshaada ilaahay subhanahu wa ta'ala uu og yahay sida waxa banaanka aad ka sheegayso uu og yahay marka ilaahay wax ka qarsoon baan jirin wa'lam anna allaha ilaahay muطلع عليك على dhamirkaaga inuu og yahay wa mushrifun inuu arkaya ala dhaahirka muuqaalkaaga yani labadu waa ogaasho weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu og yahay waxaaga muuqda iyo waxaaga qarsoon uu og yahay subhanahu wa ta'ala wa mushrifun ala dhaahirka dhaahirkaaga ilaahay uu arkaya
وباطنك باطن كاغا وأركهايا ومحيط وحوكه بإلهي سبحانه وتعالى بجميع خطراتك وحيابها قلبي كل عهيوضا ولحظاتك وحا ملاحظين عندها كل فنيسوضا وخطواتك إيا صعد كاغا تلابضا وسائر سكناتك فدقاغا دقاق تاضا إيو وحركاتك إيا حركات كاغا ضمبا هذا دقاقي إيا هذا دقاقي هذا وح ملاحظين يسي هذا ملاحظين هذا القلب وح قشتي هذا قشنين خطراتك وح قلبي كسقنا لي ماها قلبي وح كسقنا لي وعمل لكن خاطره ولي قلبك ما سقنا وحبا قلبي كسو دعيا محيا وحاس waxay u qabeen culimadu waxaasi waa wax shaydaan buu noqon karaa shaydaan bay yiraahdaan waxa uu noqon karaa wax nafsi ah nafsaani waxa alla kaaga yimid noqon karaa rahmaani waxa malaa'ik kaaga yimid noqon karaa malaki marka inta aad socoto ama aad fadhido inta hurdo mooyeen qalbigaaga waxa ku soo dhacaya waxyaabo loo baahan yahay inay ku farxad geliso ku dhaqanto iyo waxyaabo loo baahan yahay markiiba inaad iska celiso inta ayna qalbiga ku sugnaanin ilaa khadiiradu qalbiga kuma sugnaanin marka sida awgeed wuxuu ku leeyahay khadaraadkaaga waxyaabo khaadirada ee qalbiga kaaga dhacaya ee naftu kugu sheekaynayso ee ku tiri kutaanta ah waxa indhaha aad saarayso dhaqdhaqaaqaaga iyo xasiloonidaada intuba rabbi subxaanahu wa tacaala uu arkaya وأنك أضغنا في مخالطتك دحقل كاغا دحقليسو أو ضدك كل دحجتو إيا وخلوتك مركا إلا جوكتبه متردد وحاضر حيسا بين يديه إلهي هرتيس يعني مرور با الله هرتيسا جوكتا أما ضدك كل دحجر أما كريغانو ضد ما كده كل دحجرانا ضاعة أفر فرعون مركا كريغو ديهين ضاعة وحوغا عاجز كجران dad markay dadka dhex joogaan yay xun yihiin oo markay kaligoodin bay fiican yihiin laba goorro waxaad gashataa inaad Allah subhanahu wa ta'ala uu ku daalacanayo oo ku arkayo oo waxba ka qarsoonayn haddaad kaliga tahay haddaad dhex joogto isku baataado falaa yaskunu fil mulki madda walaa falaa yaskunu maddaga hayo fil mulki wal malakut mulkiga ilaahay iyo malakuutka mulki malakut واسلا معنى وحيد بقول حيسيان ملكي وعالم المشاهدة دهان وحال أركيس ودونك مثلا هي آخره أما عالم المشاهدة وحا عندها لسارك كرا يا واحد ده لسارك الملكوت كوي واحد ده لسارك أرواح ضوكله مركا لبا جوربا فلا يسكن في ملك والملكوت ساكن مدجه هي مجرو ولا يتحرك واحد دغدغاقي مجرو ولا يتحرك ما دغدغاق متحرك دغدغاقيا إلا وجبار السماوات سماوات كالله سدو دونكي الجبار كاها ومن صفات الله إنه جبار يهي سبحانه وتعالى إلا وجبار السماوات سماوات كي قصب هي كي ميل مرين كي درقي هي يا مطلع عليه طالع عنيا وحكستوت هذا كليغات هاي يهدي لغولا جوغو haddii aad degan tahay oo dhaqaaqaynin iyo haddii aad camal qabanayso camalka hadduu jawaarixda tahay haddii qalbiga tahay intuba rabbi subxaanahu wa tacaala waa ku daalacanaya waana ku arkahayaa kama qarsoomi karti si kastoo tahay yaclamu ilaahay wuxuu og yahay khaa'inata alacyun isha teeda khaa'inka ah ilaahay wuu og yahay subxaanahu wa tacaala iyo wamaa tukhfi suduuru waxa qalbiga lagu qarinhayo خائنة الأعين وإشا يا أضيو مو سكدي هاي أنا هذا وحبا كفيرين هني بعض هوسان وح عورة أو كفيرين إنسان يو حرام كلا ضد كانوا واسكي جيسان وكو أركان مثليس لكن إلهي ما كوارك سبحانه وتعالى وما تخفي الصدور إلهي وح قلبي عاد كو قرن إنسان عروش هذا كجرنا إلهي سبحانه وتعالى كما قرصون ويعلم السر إلهي سرت وأجيهاي والنجوى يصرت سر هذا الشيء سرت وح كسر جدا ووح مغضى ونسر هين مكان النجوى أصلا كذا فقد وي وح الإصلاف فقو
faquduna hadda hal ruux keliya kama dhacday laba ruux iyo ka badan bay ka dhacdaa oo faqa markaa sirta iyo waxaan sir ahayn buu waa og yahay wey rabbi subxaanahu wa tacaala aayadda qur-aankeena waxay ahayd ilaahay wuxuu og yahay waxa qarsoon iyo wax ka sii qarsoon sirta iyo wax ka sii qarsoon bay ahayd fata'addab war aadaab qaada buu ku yidhi ayuha almiskiinu miskiinkan ruuxaaga miskiinka ahow ruux walbo bani aadam waa miskiin markii ilaahay subxaanahu wa tacala loo fiiriyo antum ulfuqaraa'u ila allah innaka ayaa faqiiriin ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa hani daahiran daahirka ka aadaabiyol xagga daahirkaaga ilaali muuqaalkaaga waa xubnahaaga sare ilaali buu ku yidhi wa baatinan xubnahaaga qarsoonna ilaali waa qalbiga qalbiga way xubnaha alaa fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh marka xubnaha qarsoon oo waa qalbiga alaa wahya qalbiga ahayda xubnaha qarsoonna inaad ilaaliso ayaa muhiima marka wuxuu yidhi fata'addab ayuha almiskiinu daahiran wa baatinan bayna yaday illah ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa ka aadaab yeelo waxaad ka soo qaadaa adoo meel ka shaqaynaya oo dadkii meesha ka shaqaynaya meel kale kaa daawan ad ogtahay inay ku daawanayaan shaqadaas si fiican baad u gudanaysa walilahi masalna calaa ilaahay mar walba ku arkaya junuudiisa faraha badanna way kula wada joogtaa garbahay kaa saaran tahay meel walba wax kaa qarsoomi ma jiro wax aad qarsan karto ma jirto wax ilaahay iyo subxaana wa tacaala junuudiis ka qarsoomina ma jiro ta'addab haddaba aadaab yeelo bu ayuha almiskiin ruuxaaga miskiinkaw ka aadaab yeelo aadaabta diinta daahiran iyo baatinan bayna yadillaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa ta'addub alcabdi adaliil addoonka khaashica ee daliilka aadaabtiisa oo kale almudnibu ee dembigiisa ictiraafsan oo haddana fii xadrati almeliki aljabbaar ilaahigii jabbaarka ahaa xadradiisa jooga xadro hortiisa meesha uu xadiiradiisa ahay ku sugan alqahaar ee wuxuu doon meel marinhaya oo wajtahid waxaad ku dadaashaa allah yaraaka inuuna allaha jabbaarka ee qahaarkii kugu arag allah yaraaka mawlaaka allaha jabbaarka ee qahaarka inuu kugu arag xaysu meel nahaaka uu kuu diiday meeluu ku yidhaha gelin ha isku gelin walaa yafqudaka inuuna kaa waayin xaysu amaraka meel alla meeshuu ku faray ee ku yidhi ha lagaa helana waa daacadii buu kuu diray ha kaa arko macsiyadii buu kaa celiyey ka joog saasuu ku leeyahay xaysu amaraka walan taqdira mana karaysid calaa daalika kulli inaad la timaado wixii lagu faray oo dhan way adag tahay isla markaa haddana wixii laguu diiday oo dhan inaad ka wada durugtana way adag tahay buu ku yidhi allahuma haddii aad qaado dariiqooyin mucayan ah oo naadir ah mooyeen ilan macsuuma tihi marka wuxuu ku leeyahay walan taqdira kari maysi lagama yaabana karto calaa daalika ilaalintaas kullu dhammaantii ilaa bian tuwasica inaad qaybiso awqaataka wakhtigaaga mooyeen wakhtigaaga horta habeenii dharaar weeye habeenkii maxaa kula gudboon dharaartiisa maxaa kula gudboon dharaartii iyadoo maalin shaqo ay tahay ba haddana aad wadiifooyin samaysan kartaa adoo shaqaynaya aad qabanayso oo waxaan dhib lahayn leanna xubnahaagii ma aha keliya lugihii iyo gacmihii xubnahaagii waxaa ka mid ah xubintan waa carabkee uguna dhib badan almar'u biasgarayhi ruuxa bani aadamkii laba xubnood buu ka kooban yahay labada xubnood buuna insaan ku yahay haddii labada xubnood la waayi lahaa mid ka mid ah dhantaal weeye haddii labada la waayana insaanba ma aho marka saasa ogaanaysaan bian tuwasica awqaatika awqaadaada inaad diyaariso aad qaybiso wa turatiba inaad haddana tartiibiso awraadaka wardiga aad akhriyi lahayd min sabaaxika aroortii ilaa masaa'iga galabtii marka inay ku caddahay maxaad maanta akhriyi saaka maxaad akhriyi markaad tukato kadib awraadeed akhriyaysaa hadhow shaqaya qabsa hadda awraadeed akhri doontaa noocaasoo kale weeye fa asqi u dhaag raarici buu ku yidhi ilaa maa yulqaa ilayka waxaa laguu ridi doono oo laguu sheegi doono u dhaag raarici buu yidhi oo min awaamirillahi ilahay awaamirtiha tacaala koraya
ilaahay waxaa samee buu ku oranayaa u dheg raarici war waxaa samee buu ku leeyahay u dheg raarici iyadana min xiini tastayqidu markaad soo toosto laga bilaabo wixii lagu faray u dheg raarici min manaamika hurdada ka soo toosto ilaa waqti rujuucika ilaa aad ka soo noqoto ilaa marjicaka haddana seexadkaagii lahu yacni markii aad toostay oo soo toostay shaqadaad qaban lahayd oy salaadii iyo kow ka yihiin ilaa markaa haddana aad seexanaysa laga gaadho intaa u dhaxaysa shaqa kuu taalle shaqadaa waa inaad garataa marka ilaa marjicika lahu ilaa aad ka seexanayso intaasoo dhan maxaa kuli marka sheekadu waxay ka bilaabmi markaad toosto maxaa kula gudboon ood qabanaysaa ma laga horeeyaa mise lagama horeeyo salaada markaad gudato iyadoo nafteeda maxaa ka dambeeya waxyaabahaas insha allahu sheekhu inoo sheegi doonaa oo ka bilaabay cashiradiisa kadibna wuxuuna dhex gelin doonaa aadaabta islaamka oo qaabkaad masquusha u geli lahayd iyo qaabkaad dharka u qaadan lahayd iyo wixii dhan inoo sheekeyn doonaa kadibna qaybta labaad baan gelayna haddii la yidhaahdo marka insha allahu tacaala baabu aadaabu listiqaad toositaanka aadaabta laga doonayo baynu ka bilaabi doonaa cashirkeena soo socda intaan kaaga gaarayno wabillahi